Manchester City oo shaacisay xiddiga ugu horeeya ee laga ciirin doono kooxda marka uu suuqa furmo. Kabtankii hore ee Manchester City Richard Dunne ahna gudoomiyaha iibka City ayaa qirtay in Jack Grealish la iibin doono xagaagan kadib markii uu ku guuldareystay inuu helo qaab ciyaareed ku habboon isaga. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka England ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda cagta Ingiriiska markii uu 100 milyan ugu wareegay Etihad Stadium sanadkii 2021. Wuxuu hadda haystaa 3 horyaal oo Premier League ah, wuxuuna qayb ka noqday guushii taariikhiga ahayd ee 3 koob xilli ciyaareedkii 2022-2023. Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarkiisa goolasha ayaa aad u yaraaday, iyadoo kaliya 2 gool uu dhaliyay xilli ciyaareedkan. Goolkiisii ugu dambeeyay ee Premier League wuxuu yimid 15 bilood ka hor, bishii December 2023. Su'aalo ayaa hadda laga keenayaa mustaqbalkiisa sababtaas awgeed. Dunne ayaa rumaysan in 29 jirkan uu weli fursad ka heli karo qorshayaasha Pep Guardiola. Isagoo la hadlayay gool, wuxuu yiri markii la weydiiyay haddii ay noqon karto waqtigii isbeddelka, waa suuragal ciyaaryahan kasta oo kooxdaas ka mid ah in la ceeriyo. Jack uma aysan dhicin sidii uu jeclaan lahaa xilli ciyaareedkan. Dhabtii wuxuu jeclaan lahaa inuu helo fursad badan. Mararka qaar ciyaaryahanka ayay ku xiran tahay. Tababaraha wuxuu rabaa inuu doorto ciyaartooyda diyaarka ah ee qaabka fiican ku jira, taas oo ka dhigaysa doorashada mid adag. Waa wax uu Jack Grealish isbeddel ku samayn karo. Waa ciyaaryahan si weyn u leh hibo, ciyaaryahan aad u fiican iyo qof wanaagsan. Haddii uu dib ugu soo laabto qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, Pep iyo Man City aad bay ugu farxi lahaayeen inay sii haystaan. Wuxuu haystaa fursad. Wuxuu haystaa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan si uu go'aan ugu gaaro naftiisa. Sidoo kale wuxuu haystaa ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka iyo dhowr sano oo kale oo qandaraaskiisa ah si uu meesha ugu yeesho boos iyo inuu helo qaab ciyaareed ku habboon isaga iyo Man City, taas oo u oggolaanaysa Pep inuu si joogto ah u adeegsado.